Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube-keena. Maanta waxaan baranaynaa sida loo sameeyo YouTube thumbnail ama thumbnailka muuqaalada ka sarreeya si muuqaalada u noqdaan kuwa soo jiidasho leh. Ugu horreyn waxaad soo furataa canva.com, website-kaas oo website free ah aad ku samaysan kartid thumbnailada aad u qurux badan. Marka soo gasheed qaabkan ayuu ku soo baxaya. Thumbnailadan ayaad kala xulanaysaa. marka waxaad samaynaysaa kii ku cajibiya ama aad ka heshid ayaad ka dooranaysaa. Aniga hadda kanaan dooranaya. Kan markaan doorto markaasaan igu soo baxo qoraaladan ayuunba wax ka bedelayaa. Waxaan ka dhigayaa sida loo sameeyo. Kadibna halkan hoose qoraalkan ayaan thumbnail ka dhigaya. Markaan thumbnail ka dhigo waan soo weyneynayaa si loo arko oo indhuhu dhacaan. Fontiga ayaan bedelayaa. Kadibna waan soo weyneynayaa, soo jiidaya. Markaad soo jiidid si soo weynaato waxaad samaynaysaa halkan hoose website ama YouTube-ka magaciisa ku qoraysaa aqoontube.com www.aqoontube.com. Xaggaas sare waxaad ka bedelaysaa magaca hore ugu yaalla aqoontube.com aad ka dhigaysaa. Kadibna sana yarjiisa si isu leekaado si qurux badan u soo baxo. Sawirka dad baahan tahay bedeli kartaa haddaanad baahnayn. Kadibna waad soo degaysaa. Saas ayaad ku samayn kartaa si yar oo fudud. Aad baad mahadsantihiin.